xasan caaqil maxamuud dirir xasan waxaan ahay afhayeenka habar yoonis bari waxaan ka hadlayaa laba umuurood oo keliya umuurta ugu horeysa waxaa weeye faysal cismaan baraag waxaa aanu ka xishoonno ama ka baqno ama ka cabsanno waa kula dhiirateen ninkaasu boqor habar yoonis bari ah oo la doortay oo af muslin iyo af gaaloba ka jawaaba oo la yaqaan weeye waxa aa ku durteenna waa wax dhexdiinna ah waana la kala xishoodaayo laba nin hadday isqabato maaha inay heerka u baxdo warbaahinta sideedaa laysu qabtaayo annaga qudhayadaa mar isqabannay oo iska kala dudnay uun laakiin isma caayin ninka hadday isqabataan oo uu isim yahay lama caayo lagama caayo warbaahinta lamana gardaraysto laakiin ama waa la garnaqsadaa ama waa la iska kala dudaa ninkaasu waxaan idiin sheegayaa aniga oo nin weyna oo aabbihii aanu isku cimri nahay ninkaasu waa nin la yaqaan waa la doortay boqor habar yoonis bari weeye suldaankii guud waa naga xanuunsanayaa islaantii hooyadiina waa bugtaa hawlihii oo dhan isagaa hawlihii bari oo dhan isagaa haya sidaa dartii sidaannu idinkaga xishoonno nagaga xishooda arrintaana warbaahin dambe ka qabta annaguna waa idinka xishoonaynaa ninkaa hadalkiisu wuxuu nagaga urursan yahay waa suldaanka guud boqorka guud oo suldaankii guud iminka u shaqeeya oo xanuunsanaya hooyadiina xanuunsanayso sidaa darteed hawshayadii guud oo dhan ba isaga haya ninkaa waxaan leenahay boolojiis dambe naga siiya waxa aa ku tidhaahdeen taa intaasaan kaga tegaya waxaa hadhay shirka iyo xaaladdiisa shirkaa annagu waa maqalnay habari garxajis wuxuu leeyahay guddi guud iyo suldaanka guud oo ina suldaan cabdulqaadir iyo waayeello badan annagu shirka hadduu socdona niman caaridaya ma nihin haddii uu lagu heshiin waayona niman kordhinaya ma nihin laakiin guddidaasaa jirta saacad yoonisna maalin dhaweyd waa hadleenoo waa cawdeen aynu kala xishoonoo lafaheenna habar yoonis lafaheenna garxajis lafaheenna yacnii dee ismaaciil carre aynu kala xishoonno waxeennuna garxajis bay ku soo urureen guddida garxajis iyo suldaanka cina cabdulqaadir iyo waayeellada ayaa ku shuqul leh annaku kuwa caaradsanna ma nihin kuwa dee haddeer la yidhi socodsiiyana ma nihin wix allaale wixii heshiis iyo wanaag ku suuroobayaanna waaba saxdee laakiin yaynaan isku aflagaadayn wax nin jecel yahay ninna necab yahay dadku isku afkaar maaha isku caqlina maaha anigu waxaan ahay shirka ceelaf weyn raggii ku googo'ay oo 45 baan doorkii u dambeeye fadhiyey wanaaggiisana waa jecel lahay waxa dhammaynayana diyaar baanu u nahay laakiin isagoo qof muraadli iyuu si kale u bedelin sida aanu hadalka waan ku soo dhowaynayaa sidaa weeye labadiinna isimiin hadlayna ilmaadeerayaal xaal noo keena haddii xigtadu iscaydo waa inay isxaal marisaa boqorkaana xaal u geeya tolkii guuduu ka dhashayna xaal u geeya annagana waa horaynu isqabannayoo waataynu ka heshiinay shirkii daalood waataynu isku qabannayoo ka heshiinaya dee isqabada soo celinina ilmaadeerayaal wixii aanu maanta garanaynaa waa intaa cid dambe oo dee laga wada socon doona arrintana waa jirtaa waxaanu idinku boorinaynaa aynu kala xishoonno oo xitaa haddii muraad la leeyahay waa inuu xishood ku jira waa in gacalnimo ku jirta waa in ixtiraam ku jira haddeer waynu iswada naqaan guddida garxajis iyo guddida habar yoonis iyo waayeelka habar yoonis iyo salaadiinta habar yoonis iyo waayeelka habar yoonis geddi waynu iswada naqaan ma aha markaynaan isoqoon aynu kala xishoonno caydana aan iska dayno shirarkana si heshiisa ha lagu galo hadalka naanaystaa garhweyn wax laysku odhan jiray ma cabdali iyo cabdalla xaamud qura muuse ismaaciilba kuma jirin
abtirsiina maahae garhweyn laba reer baa la isku naanaysi jirayoo bax cabdalle niman la yidhahdo dhulbahantaa iyo cabdalle xaamud bay ahaayeen annaga garhweyn lanama yidhaahdee waa naanaysa sidaa barta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu